waxaan ku dhaaranayaa magaca Alle inaan si daacad ah u ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka iyo inaan u guto dhammaan xilka iga saaran xafiiskayga sida ay ku jirto danta cadaaladda oo kaliya barakallahu fiik waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo ii gartay ina magacaabay xilkan culus ee aad iyo aad ka weyn ee maanta la dhaariyay aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa madaxweynaha runtii waa xil weyn waa xil miisaankiisa leh waa xil mas'uuliyadiisa leh ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu asturo oo ii fududeeyo oo iga dhiga mid ku sifooda aayadihii uu hadda sheekhu inoo akhriyay hadii la hayra helitaanka garsoor hufan madax bannaan dhexdhexaada ummadda Soomaaliyeedna ugu adeega cadaalad wuxuu aasaas u yahay in la helo cadaalad oo iyaduna saldhig u ah wax kasta oo saameeya nolosha bini'aadmiga haddii ay noqoto horumar haddii ay noqoto amni iyo haddii ay noqoto kordhac dhaqaale dhammaantood waxa aasaas u ah in la helo cadaalad helitaanka cadaaladuna waxa weeye waa mas'uuliyad wadareed saaran qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliyeed ama ha noqoto dawladda ama ha noqoto golayaasha kala duwan aniguna waxaan ay qofka mas'uuliyadda koowaad ay ka sii saarantay marka dhammaantiin waxaan idinku codsanayaa marka koowaad inaad iigu ducaysaan in Ilaahay xilkaas ii fududeeyo ina waafajiyo xaqa iyo cadaaladda igana dhiga mid ummadda Soomaaliyeed ugu adeega cadaalad dulmina aan falin insha Allah ta'ala marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaadna waan u mahadnaqayaa madaxweynaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalin iyo habeen waxaan ka fikiraynaa sidii aan ugu keen lahayn cadaaladda ay ummadda Soomaaliyeed ay raadinayaan ilaahay waxaan ka baryaynaa hawshan inuu ku fududeeyo cadaaladuna waa ognahay waa aasaaska waa udubdhaxaadka dal weeye hadduusan dalku cadaalad lahayn ciidan lama dhisi karo adeegii ummaddana lama fulin karo aasaaska noloshu waa cadaalad waana xaqiiqa ummaddeenu muddooyinkii la soo dhaafay inay ka hadlayeen cadaalad darro oo dhinac walba ah oo baahsan annaguna mar walba waxaan ku taamaynay oo aan ku sameynay daraasad waxa meeshu dhibku ka taagan yahay iyo xaaladda dhabta ah oo ka jirta dalka daraasaddaasi noo soo baxday waxay noqotay in loo baahan yahay reform dib u habeyn in loo baahan yahay dib u habeyntaasna ay maanta bilaabatay inay noogu xigi doonto inaan golo adeeg aan samayno golahaas adeegana mas-uuliyaddiisa uu la wareego si cadaalad ay noqoto garab saddexaad oo la siman fulinta iyo sharci dejinta meeshaan u soconno waa taas waxa kaloo aan doonaynaa inaan samayno guddi dib u eegis ku sameeya dacwadaha iyo cabashooyinka dadka ay qabaan oo dhagaysta wax alla wixii khaldamay iyo sida loo sixi karo oo gacan kaa siin doona insha Allah sidii hawshaasi ay kugu fudaan lahayd hadduu eebbe yidhaahdo hawshaan hawl sahlan ma aha annaguna waa u soo jeesanay waxyaabaha naga khaldan oo kow cadaalad ay ka tahay inaan saxno si ilaahay uu noogu naxariisto guulna aan ku gaarno haddaysan cadaalad jirin guul ilaahayna siin maayo noon naxariisan maayo maxaa yeelay mas-uuliyadda kowna saaran oo amniga ka horeysa waa cadaaladda wey haddii aadan cadaalad lahayn ama aadan cadaalad samaynin amni ma dhisi kartid sidaas darteed guddoomiye mar kale annagoo dhan waan kugu duceynaynaa hawshaan hawl sahlan ma aha laakiin waxaan hubaa inaad la imaanayso daacadnimo iyo qalbi wanaagsan annaguna aan ku garab taagannahay wax alla wixii aan ku tari karno aan kaa caawin karnaa aan samayno ummadda Soomaaliyeedna ay gacan kugu siiyaan ilaahay inuu ku fududeeyo waa mahadsantihiin kulligii